kala hadlaynaa maanta taariikhdu tahay 12 bisha January tuulada Gowlalle oo hoos tagta magaalada Gaalkacyo waxaan halka ku qaybinaynaa kaalmo yar oo ay soo dirtay hay'adda Gurmad Somali Relief oo saldhigeedu yahay Australia magaalada Melbourne ay u deeqeen dadka walaalahooda abaaruhu saameeyeen waxay ka kooban tahay deeqdaasi biyo iyo maxaan ku dhahaa raashin bariis iyo sonkor timir iyo caano boore maadaama dadka xoolihii ay maxaan ku dhahaa ka baabeeyeen oo caano ayna dadku haysanin carruurta in lagu caddeeyo shaaha caano booraha ilaahay waxaan ka baryaynaa subxaanahu wa tacaala in abaaraha ilaahay naga saaro soomaalidana waxaan ugu baaqaynaa inay dadka walaalahooda ee abaaruhu saameeyeen ay meel kasta joogaan u gurmadaan dadka hantida leh iyo dadka dibadaha jooga ee dhaqaalaha haysta وإلهي سبحانه وتعالى أود ولا يعني ضدك سبحانه تبارك ودعان عوض يبدل سيو لكن واجب سعره ويقف كاستمانته وحيستا إنه ضدك كأنه حول سوق المدو إلهي سبحانه وتعالى بارته إنك سعره جزاكم الله خير. أنت كده بوحنا كسودوين هي معلنك. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي بقى ما هذا إسكالي وحنا مهد علينا إلهي بارتك يعني وتوصل فرينا. asaga abaarta noo keenay ilaahay abaarta naga qaadaan leenahay oo abaarta ilaahay keenay naga qaado waxaan kale u mahad celinaynaa walaalaha inoo soo gurmaday oo noo keenay deeqda biyaha iyo raashinka ah waxaan leenahay iyagana aakhire sawaab Allah ka siiyo waa ugu ducaynaynaa waxaan kale u sheegaynaa walaalaha iyo noo imaan doona ama naga maqan waxaan gaarsiinaynaa in sida walaalaha noo yimid oo kale kuwii hore iyo kuwaanba inay noogu soo gurmadaan noogu yimaadaan dadku maantay xaalkooda ilaahay baa bedeli kara aadana ma bedeli kara laakiinse waxa iyaguna adduunka همين نسيم مودان قواسنا آخر أي وحكة كتان إن نلوسو قلمدو ولا يعني وقوم هاد علينا ديقلا إنه كانن وبيها إياه هي راشينك هيدا كل ما تبغى عدي شيء قرب الصومال اللي قرب الصومال اللي فإنه كان طيب وقوم هاد علينا وحلا معي ولا ليه كذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا لا السيدة يدم مقطع ودن كعبار درنا يا كذا عدي abaartan ayaa waxay noqotay mid saamaysay inta badan gobolada Soomaaliya xoolo badan ayaa ku baaba'ay walaalo badanna way ku nafwaayeen ummadda waxay u baahan yihiin maanta in loo gurmado oo lala gaaro wax waliba noloshooda ay u baahan tahay walaalahaygo sidaad arkaysaan ummaddan cid kale uma maqna ceel kalena uma qodna ummadda Soomaaliyeed in ay iyada isku gurmato oo ay isgarab qabato wax u dhaama waa la waayay إلهي عز وجل أصحاب النبي رضوان الله عليهم وحكوا أماني ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم قصاصة حولها أي هستان أيقوا باهد درن أقوى أي وحا أي وحكسيان ولا له ذاك باهد بدن أي له رب عز وجل الذين ينفقون في السراء والضراء صفات كاللغوية قاندتك أهل الجنة وحاكم ذا بوله إله عز وجل وكوا حوله ذي وحكب بحياء مركا أجابكوا ذا أبوحا يفرح سيهين مركا jaabkooda oo maran yahay oo ma arkaysa culayska oo haystana waxbay bixiyaan buu yiri Ilaahay Azza wa Jalla marka walaalahaygo kama aamusi karno maanta walaalaha Soomaaliyeed ee abaartu ay ku habsatay khayr Allah siiyo walaalaha reer Melbourne waxay ku guuleysteen ilaa iyo 8 gobol oo kamid ah gobolada abaarta sida daran ay u saameysay in ay wax gaarsiiyaan hase ahaatee intaasi baahidoodii ma tiri karto haddii raxmad Ilaahay aysan imaan sida caadada cimilada Soomaaliya lagu yaqaan ilaa ay bisha afaraad wadanka roobka ma jiro ummadiina way baahan yihiin sidaas daraadeed waxaan baaqan u jeedinaynaa dhammaan walaalaha Soomaaliyeed caalamka meel walba ay ka joogaan in ay gurmadkan ay nala qaadaan walaal waxaan ka codsanaynaa haddii fariintan ay ku soo gaartay fadlan walaalaha kale sii gaarsii adigana waxaan ka codsanaynaa wax allaala wixii awoodaada ah oo aad ugu tala gashay walaalahaaga maanta dhibaataysan nagala qayb qaada gurmadkan waxaad nagala soo xiriiri kartaan detailka iyo nambarada hoosta ku qoran ee hay'adda gurmadda iska leedahay jazaakum allah khayr aad u mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu